qisada maanta waxay ka dhacday wadanka Kuwait. qisadan odaygeena aabihii wiilka qisada ku socota aabihii marka arkay fiidiyogiisa caloosha dhan ay xanuuntay. idinkana soo kala rajeynay inaad ka murugoon doontaan la tiiraayan doontaan. laakiin qisada waxaan anu hordhaca uga dhigi karaa waxay tahay khayr baa filin soo dhameystira shirbo kuma yimaadee. isagu wuxuu islahaa wanaag fal ba muxuu kala kulmay soo kala diyaaradda halkaasi waxay ka dejinaa wadanka Kuwait. maadaama aad dhahdeen hodanay qisooyinkii carbaha noo soo celi mar walbana amarkiina jiro badan waxay soo wajaa qisadii Hamza Moon Baby aaway qisada Hamza Moon Baby waa idin soo celinaya laakiin maadaama channelka muddo ka maqnaay tafaaculkiisu daciif waaye so insha Allah marka arkina wax yar qisada Hamza Moon Baby markaas dhex galay juhdi iyo time badan ay rabtaa so insha Allah markaad wax yar soo badataan baa idin soo gudbin doonaa. soo kala diyaaradda maanta idinka dejiyo wadanka Kuwait ogtiin passport ticket leedi kama baahan صباح أرك حالة شيخ عقل وشيخ مذهب وشيخ مقرض من كل شيء طبيعي هذه. كان من الناس اللي أكثر واحد قريب عند أبوي، هو أكثر واحد قريب عند أبوي مبارك. ما مليت من قلبي كيف أمل من الدورة والحضر ما في حتى الليلة سري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكسو نقض من أكسول على ذي دقالقة وانا ولاشين هذا نيتشال كاديقة داونيسان وجل كنا ديقة براتين هذا أونلاين داوضا ديتا مركي وغوري سود نسوب وقتيد فضلا موقال كنا دوكسو قرها دوكو عجب مادام وقتي بدن يقلي فريو ما هنو كشبه وما يسنتين wixii taliya tusaale qaybta commentiga nagu la wadaaga hadii su'aal qabtin halkaas kaga qor oo lagu soo jawaabi doona idan ka rabbi hadii videogan aad daawatay fadlan ha ka tagin la sii wadaaga asxaabtaada iyo familygaaga masawir baraha bulshadaada snapkaaga Instagram whenever rabtin noogu share garay waa maasantiin. qisadani waxay ku socotaa wiil la weysanaa wax ka badan 3 bilood ayaa wiilka la weysanaa. wiilkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Mubaarak Al-Rashidi ayaa la yiraahdaa. wixii ku dhacay awal qisadu waxay ahayd qabiyo laakiin hadda muddo laga joogo 8 week ayaa waxaa la ogaaday wixii ku dhacay wiilka 3 bilood la weysanaa Mubaarak Al-Rashidi. wiilka magaciisa waxaa la dhahaa Mubaarak ibn Ali ibn Al-Awaimi ibn Rashidi. magaciisa saas ogtiin carabtan ibn iska isticmaalaan. مبارك ابن علي ابن عميري ابن رشيد ayaa la yiraahdaa. رشيد marka waa family name ka waaye soo xaq qaadanana Mubaarak Rashid. Mubaarak wuxuu jiray 36 jir ayuu ahay markii qisadani ku dhacay. qisadan by the way waxay dhacday 2023 sanadkan ku jirno ayay dhacday. Mubaarak marka 36 jir ayuu ahay wuxuuna lahay xaaskiisa waxay u haysay 5 caruura xaaskiisa 5 caruura ayay u haysay. xaaskiisa waxay isqabeen almost 7 sanadood ayay isqabeen. xaaskiisana waa xaas ognaanay waxay isku guursadaan ilma adeer ibn cam ibn khaal ibn maxayd ayaga la isku laabtaan so family-ga la waaya xaaskiisana. wiilkan wuxuu ka shaqeyn jiray shaqadiisa rasmiga misaba joogtada waxay ahayd maxkamadda. shaqo khaas ahna wuu lahay oo wuxuu lahay business asaga iyo wiil saaxiibkiya oo waliba isku qabiil ay yihiin ayaa waxay shuraakad ku ahaayeen meel masracad ah. saaxiibka waxa la yiraahdaa Xasan. okay saaxiibkii Xasan ayaa dhahaa masracad kulleeto waa taqaaniin Soomaa waa meel weyn guryo leh qayb beeral laga dhigi karo qayb xayawaanada lagu bacrimin karo misaba lagu dhaqaaleyn karo sida farasyada waxyaabahaas. ayaga marka masracada ay isla lahaayeen qayb waxba lagu beeri jiray oo waxa lagu beeri jiray khayraadka misaba khayraadka ma fahmaysa khayraadka lagu beeri jiray. okay masracada marka asaga iyo saaxiibkiisan ay isku qabiilka ay yihiin idin leeyahay
waxay isiqaaneen sense ay maaragtay xadaanada ay wada tegi jireen. Okay, damin ilmaad xadaanada wada tegi jirteen waa laba family oo isiqa marka qabiil laga soo tago laba family oo isiqaano oo maaragtay bay ahaayeen. masracadu waxay ka gateen area la yiraahdo Kabad oo ku taalo wadankaasi Kuwait. Okay, bas marka masracadu marka aad bay u weyneed hal qof kaliya way ku adkaadeen ka labadooda ku heshiis maadaama asxaabta isla soo koreen ay ahaayeen isku qabiilna ay ahaayeen isna yaqaaneen ay ahaayeen isla soo koreen waa qayb waxba lagu beeri jiray qaybna waa xayawaanaadka lagu bacrimin jiray qaybna guriye ahaayeen laakiin guriyaas lama kareyneenin laakiin just iska normal bay ahayd. kadib waxaa dhacday kadib haddana waxay isla gateen gaari pickup ayay isla gateen oo ay waxay ku wada ahaayeen share because gaariga pickupka gawaarida wadankeena atig waxa una qanaanaga Toyota oo gadaalka banaan albaabka ee gaariga shirka iyo hal qof kaliya fadhiisan karo ama laba qof saddex qof baa lagu fadhiisan karaa gadaalna way banaan tahay gaariga pickupka. So gaarigaas camalna way isla gateen يعني labadan rag everything way isla lahaayeen. gaariga marka pickupka wuxuu ka caawin jiray marka beerta kheyraadku ay ka soo baxdo baa lagu rari jiray oo dadka laga gatay dadka gadanaya kheyraadkaas loogu deliver gareyn jiray. bas maalmaha kamid ah xaaska Mubaarak ayaa tiri mararka qaar xaaska Mubaarak iyo noo sheekin doonto waxay tiri ninkayga nin wanaagsan afgaaban akhlaaq leh mutadayin shantiisa waqti dhaafin yani sideeda hadalka soo koobaa waxa la yiraahdaa geeri amaan geeri baa ka xigto. bas waxay tiri ninkayga ma ahayn bay tiri dadka ragga guryahooda ka dhaxa ragga soo daaha ragga wareega badan ragga nin wanaagsan buu ahay. maalinka qaarna bay tiri hadduu shaqo ku soo daahayo ama asxaabtiisa uu waqti la soo qaadanayo intuu isoo waxa way ii sheegi jiray hey maanta waa soo daahaya just to let you know in case wax walba dhici karta. Okay, kadib waxay tiri maalmaha kamida ayuu ma aragtay isoo wacay waliba taariikhda qisadan ee dhacday waxa weeye 13 March 2023 yani hadda waxa laga jooga almost 4 bilood ka hor qisadan dhacday. وحي إصابة عبتري around 10 PM مركي هبين كهاد يعني 4 ساعة هبين أما 10 كهبين نمو أيو إصابة عي مركز يقول هاي السلام عليكم حياك الله سيتين في عندنا الحمد لله أذيك ما بناك وبنت قولي أصوص على مركز كنت رمي سلامتك وحبوا مبهنين إلهي أذي لها كون لابو صونا بدعيليا نونا بديمو. أوكي وحيد تري مالين كاس 13 مارج sidii caadada ahayd dawaamkiisa shaqada markuu ka soo baxay masracadu sii tagay bitir waana la socday marka around 10 PM bay soo baxay waxay yiri bitir masracada ka soo baxaya madam yani soo maray magaalada ma ku soo ma adeeg ma u baantay caano anything markaas ku tirnaa salaamtak ilaahay ku nabad keeno. Okay, iska soo baxay وصاب حبيت ترتسده أن وضع هذا الكو أهاي because قفكو صاب بعوكو ده وصوص على جوريجا وصوص على وحمان كوسو كذا أديك من صوص كذا أو ترمية ده قفك صوص على جوريجا وحيد تدر 10 بقى هذا مركو يصاب حي واسوقي مو إيمان بيتر واسكع شيء سأسوقي فرنجي بانك معي waxaan soo kacay batondhaa soo faray 2 AM maray tahay telefonkan fiiri kabiisiyaan guriga ka fiirfiiriyay inkaas yani anoo gamacsan amu imid camal waxaan ogaaday tiriinuusan imaanin gurigan ka raaraaday musqulaanka fiiri markaan waayay baan wacay tiri lama qabanayo telefonkiisi ma qabanayo telefonkiisi waan yara sugay hadana waan ku celiyay ma qabanay hadana waan ku celiyay ma qabanay hadana waan ku celiyay ma qabanay almuhim san telefonkii ugu celinayay on afray bay tiri waxay igu gaadhay 7 AM morning ninkii xalay 10 habeenimo inuu guriga ku soo laabta ahay ilaa 7 AM bay xaaskiisu wacaysaa 7 AM wixii ka dambeeyay telefonkiisii wuu damay
okay cidiisii bay wici rabtay oo the familygiisii aabihii walaaladiisa dan waxay siri balbal u deji inuu dadka alfaadi ha ka walwalgelinayne waan yara sugabay waa siira deji waan yara sugay haddana around 10 morning markay noqotay baa waxay tiri aabihii iyo walaalkiisa ka weyn se wuxuu jireen ayaana u sheegay طبعا فاميليز waxay u maleeyeen ninkan iyo naagtiisa danin iyo naagtu xalil alla ma nabadna ma ahane inay isku dhaceen oo ninkan inuu madaxa soo dejisto oo guriga uga tago telefoonka uga qaban walaayi malahe abi baa dhahayo bal aaban ku duceeyo waa walaalkiisa ka weyn aba wacay lagama qabanayo abi baa wacay lagama qabanayo telefoonkiisa marka marna wuu damaya marna wuu daarmaya laakiin 12 duhurnimo markay ahayd telefoonkiisa total waa la damiyay waa la damiyay kadib walaalkiis uu ka weyn baa dhahay saaxiibkii xasan baa wacno maybe inay soo joogan soo ma dhici karto ha okay xasan baa la wacay wiilka hadii sheegay la yaraantiisa soo koray ma qabanaysna walu celi xasan ma qabanayo mubaarakna uu dasay telefoonkiisa cidiisii waxay dhayn xaaskii ku dhayn okay last time halku ka soo wacay masracad yaa la wada tagay gooriyaal soo daba qaatay carabtan ilaa adduunku ugu naxari ugu raaxay ilaa amarkiis okay gooriyaal soo daba qaatay waa la baxay masracadii tagay masracadii markay tageen parkinka masracada waxaa yaala gaarigii mubaarak family way isdejiyeen soo walaalku sheegayo waa isdejina wiiri shaydaanka iska waxa dhaanay wiil alxamdulillah al aqal yani intuu jooga maybe inuu seexdayba xali xanaaqi iska dhacay gaariga u tagay way fiirfiiriyeen gurigay galeen oo masracada qaybtii guriyaha ku lahaay way raadiyeen waa loo wacay qol walba musqulihii everywhere male maxaa ii dhiibatay gaarigiisii waa loo gareysay dameen muftaax in la keeno maahane hadduu nuskhad kale guriga yaalo ama so copy because gaarida markaa gadano laba furaal ku siinaya okay markay tageen ay waayeen xasan bay waceen maqan family markay iskaga soo laabtay masracadii dhowr saac ay joogeen guryahoodii ku kala laabteen iyagoo yaaban still waxay wacayaan xasan wuxuu telefonkii qabtay 6 PM markay ahayd mubaarakna xalay baa la waayay 4 saac markay ahayd ama 10kii telefonka markuu qabtay walaalkii waa salaamu calaykum hay maxaa dhacay telefonka maanta xiri xalay tool anuu daalana guriga mido saare yaa maanta oo dhan waan hurday so telefonkana wuu dansanaa bay ahayd oo codkan ka damiyay yani ma telefonka off waa maahan codkan ka xiray sorry ana hadalka qalad u dhahay codkan ka xiray so hadaa soo kacay khayr ma jira markaas ay ku yiraahdeen mubaarak ma aragtay waxay yiraahdeen xir mubaarak xalay masracadan ku arkay maruu isaga imanayay parkinka markuu isaga soo istaagay anayna sii baxay baheed salaamu calaykum alaykum salaam baan ku soo kala tagnay oo yani waqti ma wada qaadan because aniga shalay maalinka dhan masracadan joogay asagana wuxuu ii imiday afternoon-kii tamarkuu yimiday waa is salaanay leh anna horaan buu usii baxay waa iska daalanaa as wuxuu yiri maanta meeshaan waxay joogi rabaa hawlo yaraan kala qaban rabaa okay hadda waxay ku yiraahdeen walaalka ila walaalun baa la dhihi karaa qof ay yaraanta soo korteen sidii xalay markii ugu dambeysay xaaskiisa soo wacay 10kii habeenimo ahayd wala weysayahay bal waxa aadayna police station-ka nooga daba imo qosmi shurtada ama sameesha deelaamaha amniga saldhiga nooga daba imo haya waayahay family-gii aabihii xaaskii everyone waa wada baxeen waxay tageen saldhigii dabcan su'aalo la weydiinaa qofkan muddos inta lagu dhumsayay bla 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 halkuu saldhigii markii ay tageen 4 saacadood kadib waxa salmiday saldhiga 4 saacadood oo dhan xasan meeshu degan yahay saldhigan waxay isku jirtaa sala sheegay 17 daqiiqo drive ah 17 daqiiqo drive ah dawaba agteeda aan kara okay markuu yimiday
already family interview waa laga qaaday asaga la wareys waxa lagu yiri qofkii ugu dambeeyay mubaarak arkay xasan oo maadaama adiga tahay bal noo sheegso wax u dhacay wuxuu yiri wax dhacay meesha ma jiraan anu shalay toolay all day shaqo ma lahayn masracadan joogan ku shaqeynayay meelaha galbihi maraan guri ka soo baxayba masracada anoo gaarigay ku dhex jiro oo mubaarak asna parking ka soo istaagay waa isa salaanay haye maxaa shaqo leen ka wada hadalay maxaa qabatay maxaa jiro kadibna waa baxay anu asna masracadu gaarigiisu ka degay guduhu sii galay ana waaba arkay deen gudihiisa laga muraayada ka arkay ana waaba sii socod gurigayga imaaday all day long maantana waa hurday because waa daalay so waxaan ka hadlo مسوا أنا دين فانسي مسوا دين شيء ماشي ما بيا لانو تاجين صاحب كي قال واحد قاعد يدكم طبعا سيدا عادة إيه قف مرك اللوايو أما اللي تلو قف كي قدام بيه وضع هلان أما تلفنا كو وضع هلان أما لايفس كو أركانه كو وضع هلانه مرور بقف كاس أي نلكو أما ستوش كلو إفيا مركي قف كاس كسر ما لا لا ما أمني بقوم بيهدنا مالك الوح كراديا صاحب كين isla markiiba qol baa la geystay interview ayaa loo bilaabay wuxuu ku adkaysay sida caadada ahadan idin soo sheegay baasha raqay waaya bismillah okay interviewga markii laga qaadayay because dadka interviewga qaada iyo laamaha amniga mise booliisku waa kala labo okay laba team kaliya booliiska normalka dadka interviewga dadka ka qaado iyo dambi baarayaashuna waa kala saddex yani mid walba si gooni iyo takhasus u yahay mise si gooni loo tababaraa dadka interviewga dadka ka qaado waxay professional ku yihiin ama sabab loo tababaraa inay qofka body language kiisa number 1 ee akhriyaan number 2 qofka inay afkiisa erayga ay rabaan ka keeni karaan interviewga markii laga qaadayay markay fiiriyeen attitude kiisa waxay dareemeen ninkan in jirkiisa ama se bodygiisa ay ku jirto maado maandooriye ah khamri baa dhici karta inay tahay inay nacas tahay dhici karto wali ma hubaan laakiin markii ay body language kiisa ay fiiriyeen ay acting like qof jirkiisa wax ku jiro laamaha amnigu isla markii waxay go'aamiyeen in ninkan laga qaado dhigig blood test laba ragoo saldhigga lagu daray isbitaalka loo xawilay dhiigga laga soo qaaday haddana saldhiggii ayaa lagu soo celiyay blood test wuxuu qaataa 2 ilaa 4 saacadood kaliya intiina saldhigga ayaa lagu haystay okay dhiiggiisii markii natiijadii soo baxday waxaa